magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa goordhoweed ka furmay tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika iyadoo xafladda furitaanka ay ka qayb galeen dhowr madaxweyne oo Afrikaan ah oo ka mid ahaa madaxweynaha dowladda Koonfur Afrika Jacob Zuma. Madaxweyne Jacob Zuma oo furay tartanka ayaa u mahadceliyay xiriirada kubadda cagta ee qaaradda Afrika isagoona tilmaamay in tartanka uu ku dhamaan doono sidii laga doonayay. tartankan oo la doonayay inay martigeliso dalka Liibiya ayaa laga joojiyay kadib markii ay ka dhaceen rabshado amni darro oo sababay in meesha ay ka baxdo dowladii uu hogaaminayay Muammar al-Gaddafi. Koonfur Afrika ayaana sidaasi ku noqotay inay martigeliso koobkan maadaama ay leedahay garoomo casri ah oo ay sanadkii 2010 ku martigelisay koobkii adduunka. tartankan ayaa waxaa ka qayb galaya 16 dal oo ka kala socda qaaradda madow ee Afrika waxaana ciyaartii ugu horeysay ee furitaanka lagu furay dalka martigelinaya koobkan ee Koonfur Afrika iyo jasiiradda yar ee Cape Verde oo isaga hor yimid garoonka Soccer City ee magaalada Johannesburg. ciyaarta labaad ee waxay dhex maraysaa xulalka Angola iyo Morocco. Mustafa Hassan, Universal TV, Koonfur Afrika.